chapter keena saddexaad waxaan ku baran doonaa waxa loo yaqaan transform and soo furo exercise keena marka open dama file tago open soo furo transform panel and move tool kan soo qaadanayna exercise kadibna waxaan leeyahay open transform panel marka noo soo furmo wuxuu ka kooban yahay waxa weeyaan hal artboard iyo laba shapes ugu horeyn waxaan u baahanay marka waxa weeyaan waxa loo yaqaan transform kan inuu faahno shayga marka aad doorato properties kaaga waxa ku active noqonaya waxa loo yaqaan transform marka haddaad gooni ugu baahantahay inaad soo furato waxaad tagaysaa windows deedna waxaad soo furanaysaa waa ka keliya halkan ku yaala transform panel marka panelskan iyo panelska ku yaala properties waa isku mid waxba kuma kala duwana waxaan markasta propertieska waxa loogu talagalay shayga aad doorato wixii uu baahan yahay haddii qoraal yahayna iyo tagasti halkan buu kuu soo dhigayaa farti iyo fontski hadduu shay baad doorto sidaas oo kale wuxuu kuu soo dhigayaa waxyaabo u baahnaa oo kamid ah transform appearance iyo waxa weeyaan alignments kana muxuu ku soo dhigay waa transform iyo alignments iyo pathfinder maadaama shape la doortay aynu ku bilowno markaa shape kiisa ugu horeeya x y z z maaha x iyo y waa positionska shape kan uu taagan yahay halka uu taagan yahay wuxuu noo sheegayaa locationska uu ka taagan yahay bahalkeena maxaa loo yaqaanayay waraaqdeena barta ay ku taagan yahay marka shapeskaasi waa x iyo y marka locationska tan ku sheegaya ka ku xiga waxa weeyaan waa widthka iyo heightka shayga inaad sizekiisa weyneyn karayso iyo inaad yareyn karayso marka hadda doorato kan oo deedna aad ku samayso widthki iyo heightkii aad matalan aad ka dhigayso waxaan ka dhigi karaynaa 350 baan ka dhigay widthki waxaad arkaysaa widthku soo yaraaday haddaad isla markaa heightka aad ka doonayso waxaad ka dhigi karaysaa 350 isagana si mani wali ah ayaad u gelinaysaa marka haddaad shayga aad doonayso cabir rasmi inaad ku fadhiisiiso waxaad isticmaali karaysaa widthka iyo heightka haddii halkan waxa ku yaala waa silsiladan waxay isku xidhaysaa labadan haddii doonayso isku xidhnaadaan matalan waa isku xidhay widthku haddii uu kordho uu 500 uu noqdo automatic heightkuna muxuu noqonayaa 500 marka maxay la mid tahay transformka in badan lama isticmaalo marar badan sababtoo ah toolska loo yaqaano selection toolka ay qabanaya shaqadana maxaa kamid ahaa haddii imka silsilada iska soo xidhno shayga sizekiisa widthkood weyneyn karaysaa waxaad ka dhigi karaysaa 588 laakiin maxaa raacaya sentiyo marka sentiyada haddaad saa ula socoto numberkana waxaad arkaysaa viewgaaga haddaad eegto u fiirso mouse waxa la soconaya waxa weeyaan number baa la soconaya numberkaas wuxuu kuu sheegayaa intuu marayo imka 595 buu widthku marayaa heightkuna 500 buu marayaa laakiin markaad sii deyso marba waxa kugu dhici karaya inaad waxa weeyaan wax yar raacaan way markaad mouse saad uga qaataa hadii in yar raaciso numberka ku dhigayso marka sababtaas mar loo isticmaalaa transformka way talabaad haddana imka u baahan marka inaan isleekaysiiyo oo labada dhinac isleegaadaan shift baan haynaa marka shift maxay saamaxaysaa oo silsiladan oo kale labada dhinac in isku leeg ba ku kordhaysa ama ka dhinaanaysa laakiin transformka maxaa loogu baahan yahay haddii imka location kan bahalkan aan doonayo inuu noqdo 520 pixel inuu square noqdo haddaan qaab mani wala mouse kan wadayo waxaad arkaysaa girgir yar baa ku jiraya maanta oo dhan waa inaan idhaahdaa okay 532 kan ku fadhiisi waqti baa ka dhacaya kan laakiin muxuu ka caawinaya waxaan leeyahay ayr baan gelinaya 520 heightkana waxaan leeyahay 520 ka dhig deedna saasuu ku fadhiyayaa widthka iyo heightka marka kan waa locationski ka ku xiga waxaa loo yaqaanaa waa rotationku waa shayga inuu wareejiyo imika rotation marka haddaan doorto kili ku dhufto oo idhaahdo 30 ha wareego 30% waxaad arkaysaa cidhifka halkan uu ka wareegayo u fiirso bartuu ka wareegayaa aan ka noqdo control sana idhaahdo shape kana halkan ii soo qaad saynu fahno okay iba koobiye kana sizekiisa aan yareeyo rotation ku sameey way waxaan uga dan leeyahay waxa weeyaan labada cidhif u fiirso kamaan imika markaan u dan leeyahay haddii aan rotation ku sameeyo oo idhaahdo 30 degree meesha uu ka wareegayo u fiirso halkaas ayuu centerkiisu yahay u fiirso bartaasuu centerkii ka dhigtay marka halkaas ka wareegaya bartaas hadda halkii ka timid waxay ka timid haddaad u soo fiirsato waxa weeyaan halkan waxa ku yaala waa pointska uu ka wareegayo circle-ka haddii aynu ka noqono control sana idhaahdo pointska waxaan ka dhigi karayaa inuu ka wareego xagga sare marka haddaan tigta aan geeyo xagga sare oo deedna rotationkii aan ku sameeyo waxa weeyaan aan idhaahdo 30 degree imika dushiisa uu ka wareegaya marka go'aanka bartii uu ka wareegaya waxa qaadanaysa waa locationskan marka haddaad u baahan tahay in shape-kaagu uu wareego isagoo halkaas center ku hayo inuu xaggan kale u soo wareego waxaad geynaysaa markaa meesha aad doonayso haddii kalena waxaad geynaysaa centerka aad doonayso inuu ka wareegayo marka kan wuxuu noqonayaa waa rotationka bahalkaagu wareegayo imika 150 hadda ha wareego waxaad arkaysaa 150 buu wareegaya centerkan ka wareegaya marka wax weeyaan intaas waxay go'aaminaysaa wax weeyaan ku xiga wuxuu noqonayaa sfiilku wuxuu noqonayaa qaabka uu janjeer sameeyo
waxaad arkaysaa shape-kaagii qaabka uu noqonayo marka mar haddii aad shape-kii bedesho already shape ahaan uu ka tagay marka control star haddaan idhaahdo aan ka noqdo propertiesku laba noqonaya waa transform iyo rectangle labadana way isku soo dhadhow yihiin maxay u fiirsaga waxay ku kala duwan yihiin wax weeyaan transformku waxa loogu talagalay shay kasta sawir ha noqdo waxa weeyaan PSD file kale oo ka kooban qoraal ha noqdo wax kasta transformku propertieskaas uu leeyahay waa locationski iyo width iyo rotationki si aynu faahno haddaan file tago oo aan sawir soo qaato markaa sawirka qaabka loo soo qaadanay xagga dambe ku baran doonaa laakiin waxaan doonayaa inaan soo qaato sawir oo kale waxaan leeyahay place okay sawirkan ma aha diiday place aan idhaahdo another sawir kale kama soo qaatay didna waxaan place halkaas aan dhiganayaa way u fiirso haddii aan shape-ka aan doorto waxa hoos yaalo waa rectangle properties haddii laakiin aan sawir aan doorto rectangle-ka meesha ma yaalo just transform properties kiyo kaliya yaala marka macnaheedu waxa weeyaan shape-ka ayaa intan hoose loo yaqaan rectangle properties sidiisa u leh maxay hadaba intani tahay maxaana ku kala duwan yihiin waxba kuma kala duwana waa isku mid aynu eegna bal shape-ka hadda doortay wuxuu ku leeyahay width waa 520 height-kuna waa 520 kana waa rectangle waa 520 iyo 520 marka hadda numberkii aad kordhiso imka kanaad ka dhigto 400 iyo contract ka dhigto interaad siiso kiisarna muxuu noqonayaa 450 buu noqonaya marka waxa weeyaan waxay totally kala duwan yihiin ma jiraan midna waa global transformku wax kasta wuu saameeyaa midna gooni buu si leeyahay waxa loo yaqaan shape-ku marka labada shape intan waa isku mid hadda rotation u baahan tahay imka wax weeyaan 180 buu rotation ku sameynay sawirka ood ku sameyn kartaa imka sawirka hadda soo qaato waxa leedahay 150 ku sameeyay rotation shape-kii labada dhinac ka doonto ka sameyn kartaa kan wax leeyahay 150 ku sameeyay dhinac doonto ka sameyn karaysaa marka qaabkaas ayuu u shaqeynaya wax weeyaan wax loo yaqaano transformku marka ta ugu muhiimsan ee doonayna wax weeyaan waa labadan button oo kaliya tahay inuu si fiican faano inta kale wax weeyaan waa iskaga mid iyo wax weeyaan tools kale oo inoo arki doono wax weeyaan rotationskan imika wax weeyaan oo inoo soo dhigayo oo aynu halkan kale ka eegi doono properties loo yaqaano iyaga oo tool ahna waynu baran doonaa aynu ku noqono marka kan iska delete garayno ugu horeyn waxaanu ku noqonaynaa marka kana aynu ku soo celino wax weeyaan sidiisii waxaanu ku horeyn doonaa shape-kan labadan line loo yaqaano scale corners iyo scale strokes maxay saamta u faahno halkan waxaanu ku haysanaa wax weeyaan rectangle-kaasi marka cabir buu wataa stroke-giisu waa 6 point haddii size-kiisa aynu yareyno fiirso shaygu waynu yareyna xoog baynu yareyna zoom-ka dadna aynu ku soo dhaweysano shayga size-kiisana waynu yareynay maxaa dhacaya imika waxa isleegaado fiirso stroke 6diisii uu yahay dynamic maaha 6diisii uu yahay marka waxa isleegaanay wax weeyaan stroke markii hore yara iyo shape-ki baa isleegaanaya haddii marka si kale aynu soo dhigno shayga size-kiisa aan yareeyay waxaan ka dhigay matalan 1 baan ka dhigay imika markuu shaygu size-kiisa yareeyay si fiican baynu arkaynaa filkii iyo stroke marka wax weeyaan waa wareega ku wareegaya colorkiisa uu bedeli karaysa haddii ka dhigno red waxaad arkaysaa waa kaaynu colorkiisa bedbedelayno waayahay madowgeyn ma ka dhigayna ku deeno madowgaasi haddii size-kiisii aynu weynayno maxaa dhacay imika size-kii maxaanu ka dhignay waxaanu ka dhignay 1 point waayahay zoom out baan ku sameeyay shaygii baan size-kiisii weyneeyay u fiirso shaygii maxaad arkaysaa weli size-kii shape-ka weli wuu yaryahay oo toos looma arkayo marka qof ka fogayo kale si fiican looma arkayo haddaad soo zoom garayso waxaad arkaysaa oo doorato weli halkii buu taagan yahay waayo qodob labaad baan eegayaa waan yareyno size-kiisa sida hore kale aan ku celino size-kiisa aan weli yareeyay laba qodob baan isku darayaa shaygina 1 point baan ka dhigay stroke-giisii rounded-na waan ka dhigay oo fiirso rounded-kii waxaan ka dhigay meelaha waxaan ka dhigayaa rounded halkan oo kale waxaan jeedaa waxaad ka gelin karaysaa halkan oo kale gelin karaysaa marka transformku halkan oo kale gelin kartaa imka 2 point buu leeyahay waxaan leeyahay matalan 5 baan ka dhigaya haddaad angle kaliya doonayso inaad rounded ka dhigto silsiladaad ka furaysaa waxaad leedahay xagga sare 0 ka dhig xaggan kale waxaan leeyahay 0 ka dhig taana waad ka samayn kartaa xagga labadii sare oo kaliya imka ah waa haddaad silsiladaad ka dhexidho laakiin inagu waxaanu ka dhigaynaa afartan dhinacba silsiladeenu ku celino waaye maxaan haddaba uga dalanayaa labadan qodob saynu fahmin doonayaa rounded baan ka dhigay rounded waa 5 pixels stroke waa 1 pixels sidan markuu yahay si fiican baa loo arkayaa shape-kii iyo waxa weeyaan si iyo rounded si fiican bay yihiin
laakiin markasta oo sizeku uu weynaado u fiirso marka zoom out baan ku sameynaya waan soo doortay sizekii baan soo weynayay maxaa dhacaya haddii lagu soo dhigo waxa weeyaan strogii iyo waxa weeyaan roundedkii sida fiican markaynu arkaynay totally lama arkayo waayo haddaad doorato strogii muu kordhina 5 buu yahay pixelkiina muu kordhina 1 buu yahay shaygu markastuu weynaado midkoodna isma bedelay sidoodu waxaanaya si haddaba taasi aad uga hortagto oo shaygu isku leegaado aynu ku noqono markii aanu yaraynay labadan tig haddaad saarto scale-ka iyo stroga ayaan imika tigareeyay shay kale maan ku soo kordhin sidiisii si lamid ah size-kii weyneeyay waxa ka size-kii markaa imika soo weyneeyay farqiga u dhaxeeya stroga imika wuu weyn yahay oo sidii markii uu yaraa intuu leegaa in leeg buu proportionalka uu imika leeyahay marka haddaad doorato maxaa isbedelay waxa isbedeloo fiirso halkii markii hore roundedka aynu 5 ka dhignay 142 buu automatic uga dhiganaya wuxuu la korayaa shaygu markastuu size-kiisu uu kordho percentage-kii uu kordhay percentage leeg baa ku kordhaya wax weeyaan roundedkii qodobka labaad stroke wuxuu marayaa 8.5 buu ordaya stroke marka hore muxuu ahaa 1 pixels marka labadan tool waxa loogu talagalay inay ku noqdaan si scale-ka marka uu shaygu weynaado inuu la weynaado markuu yaraadana inuu la yaraado marka waa laba shay oo aad u muhiima si marka marna loo baahda marna waa la iska xilaa marka transform-ka qodobada ugu muhiimsani waxa weeyaan u shaqeynaya transform panel waa ka qodob labaad inuu eegnaa rotation-ka hadda doorato waxa jira marka isaga aad doorato haddii marka half of it baad haysataa circle-ka haddaad u baahan tahay marka halkan kuuguma jiro rotation laba tool oo kale oo dheeraad oo halkan ku yaala labadan tool bartan ku yaalo in baran doono oo loo yaqaano rotate tool iyo reflect tool buu la mid yahay waxaad awoodaysaa shayga intaad doorato ood edit ku samayso ood copy ku samayso hadda doono kii hore colorkiisa bedelo marka hadda u fiirso kan keenu copyisana waa cadaan aynu colorkiisa marka weliba aynu yellow ka dhigno deedna waxa la edit waan ku dul basti garanay best in front baan leh kii yellow inoo qarsoonay kan baa dusha soo maray haddaad ku dhufto calaamada loo yaqaano rotation reflect horizontal iyo vertical buu kala leeyahay haddaad kan ku dhufato waxaad arkaysaa opposite-kii buu ka samaynaya dhinacii kale uu jeedinaya isaga oo ka center qaadanaya dhibicda bartay taala dhibicda haddaan xaggan geeyo oo reflection ku sameeyo waxaad arkaysaa automatic bartaasi dhibicdu ka bilaabmaysay waxaan jeedaa dhinacan bay dhibicdu tagaysay deedna automatic buu reflection u sameynaya marka waa areadan waxay ka caawinaysaa waa meesha location ka dhacayo laakiin waxaad arkaysaa labadii tool imika isagii baan rotation ku sameeyay hal half anigoo haystay baan half ka kale marka transform-ku qaabkaas uu shaqeynaya waxaynu casharkan ku baran doonaa qaababka kala duwan ee kale iyagana loo sameeyo transform-ka hore videogii kan ka horeeyay waxaynu ku soo aragnay transform panel-ka haddase waxaynu baran doonaa tools ka duwan oo kamid ah toolbox-keena qaabka loo sameeyo transformska kale ee kala duwan waxaan imika u baahanahay inaan sameeyo saddex xagalkan ama 3D boxkan halkan oo kale ah si aan 3D boxkan aan u sameeyo oo kale waxaan ugu horreyn soo qaadanayaa rectangle saddex rectangle oo shape oo caadi ah waxa la yahay drag and drop isla isagan kala koobiyanaya altaan qabanaya colorska hadda doonto waxaanu ka soo kala qaadanaa waxa weeyaan ugu horreyn aanu sameeyno saddexdooda highlight gare deedna waxaanu bedelnaa stroke ma baahni waxaan u baahanahay waxa weeyaan fill color oo kaliya waa saddex color hadaynu doorano oo stroke-ga tagto color koowaad kamid ka dhigaynaa colorka labaadna waxaanu ka dhigaynaa kiisa ku xiga colorka saddexaadna waxaanu ka dhigaynaa light waxaanu ugu talagalnay okay waxaad ka dhigtaa kan ka dhig kana waxaad ka dhigtaa ka dhexe kana waxaanu ka dhigaynaa kiisa u dambeeya ee dhaca saddexda color baan kala dhignay saddexda color hadda waxaanu doonaa ama saddexdan box inaynu u bedelno qaab 3D ah waxaanu isticmaalnaa toolskan loo yaqaano transform-ka haddii aad u tagto waxa weeyaan toolska loo yaqaano transform waa toolska halkan ku yaala waxaana loo yaqaanaa waa free transform tool haddaad click siiso ama double click waxaan jeedaa right click laba tool ka kooban yahay waa pivot wrap tool iyo free transform waxaan ku horeyn doonaa toolka loo yaqaano free transform ka dhufato automatic waxa u soo boodaya waxa weeyaan waa tool boxkan kale ayaa ku soo baxaya marka hadaad line taagantahay is xulaya laakiin hadaad doorato free transform aad click ku dhufato waxa weeyaan uu ku soo baxaya free transform marka waxa weeyaan meesha aad u baahan tahay dhigan kartaa oo soo dhaweysan kartaa halkan oo kale oo sii dhiganayna waxaanu ka bilaabaynaa toolska ugu horeeya ka hor waxaanu baran doonaa marka move toolkan inaan ku noqono hays xidho marka shape kale oo dheeraad oo aan ahayn kamin soo qaadanayna
colorkiisa aynu bedelno saddexdaan ahayn waxaan leeyahay markaa dib u soo qaado free transformka ka koowaad baynu ka bilaabaynaa markaa waxaan oo toolisa ama transform panelka ha noqoto ama move toolka ha noqoto ama qaar kale oo aragna ha noqotee qaar badan buu selection toolkan ugu horeeya u qabanaya maxaa kamid ah imika toolskan ugu horeeya wuxuu ku sheegay waa free transform shaygan afartiis dhinac waa jiidi karaysa waxa isbedelaya waxa weeyaan waa arrowgi wuxuu noqonayaa qayb ka duwan laba arrows dhaafaya marka wuxuu ku sheegay angle-ka aad jiidi karayso muxuu la mid yahay waa waxa weeyaan waa free transformka ama move toolka la mid yahay ama transform panelka widthki height-ka aad kordhiso haddaad silsilada isku xidho waa sida halkan oo kale laba dhinac baa wada kordhaya dhinacaas waxa weeyaan labada dhinac baa isleegaanaya waa very simple waa intii kii hore kale haddaad silsilada iska xidhin waxa weeyaan kii la mid yahay marka kan waa inta badan selection toolka kaaga filan laakiin labadan tool kale muhiim ah waxaan ku horeyn doonaa toolkan loo yaqaano perspective mayka hoosen ku soo horeyn doonaa loo yaqaano free distory aynu soo qaadano ugu horeyn kan iska delete garayno saddexdan shape ka kood ka bilaabana halkan baan keensanayaa free transform ka dadna soo qaadanaya toolkan ugu hoosen ka soo bilaabayna waxa toolska marka aad ku habeynaysaa waxa weyn location ka doonayso afarta dhinac waxaad awoodaysaa inaad dhinaca doonto aad geyn karayso marka waxaan leeyahay drag and drop ka halka gee ka labaadna waxaan leeyahay drag and drop dadna waxaan leeyahay cidhifka saddexaadna waxaan leeyahay drag and drop dadna ka ugu dambeeya marka waxaad awoodaysaa inaad qaabka doonayso aad soo dhigi karayso ka labaadna haddana soo qaadanaya toolka bogoska labaad ee ku xiga waxaan leeyahay marka isagana transformkii baan doortay isagii dadna waxaan leeyahay locationka kan halkan gee waxaan leeyahay kan labaadna cidhifkan iyo kan cidhifka hoose kaana gee simple waxaa ku xigaya kan saddexaad baa ku xigaya isagana marka waxaad leedahay isaga halkaa kaa gee okay may kan horta halkan keen kan marka wuxuu imanayaa halkan buu imanayaa kan labaadna wuxuu imanayaa section kan deedna ugu dambeyn bogoskii saas ku noqonaya marka markasta toolskan waa isku soo noqonaya toolskan waxa la mid oo kale oo imika shaqadanu kale inoo qabanaya toolka loo yaqaano direct selection waayo waxaad controlaysaa cidhif kasta goonibaad ku control kartaa marka kaasina waa markasta software-ka isticmaalsi waxa jira tools badan oo aan loo baahnayn isticmaalkiisa oo tools kale oo fudud ay ku jiraan oo qabanayaan marka maaha qasab inaad dhammaan toolska oo dhan Adobe Illustrator ka barato laakiin waxa muhiim ah toolska shaqada aad qabanayso ka doontad ka aqoonto waxa laga yaabaa laba qof oo hal wadna wada sawiraya inuu midba dhinacu kaga yimaado tool gooniya oo aan islahayn bay u isticmaalaan way marka toolska aynu baranay waxa loo yaqaanaa waa toolska loo yaqaan free transform mar labaad baan dadna doonayna inuu hadana sii wadno dad click siiso ugu horreyn waxaan u baahnaa imika shape ka man doonaya inaan shido waxaan leeyahay drag and drop ugu horreyn shape caadi baan sameeyay colorkiisa si aad isku mid u noqoto waxaad isticmaali doontaa color header toolin baran doonaa toolka loo yaqaan eye drop toolkan eye drop color wuxuu eekaysiinaya shaygan colorkiisa meesha aad ku dhufato way eekaysiinaya halkan ku dhufato halkan ku dhufato colorkiisa isku mid u ka dhigay marka dhawin baran doonaa shayga markaan doorto waxaan xagga sare ku yaala wax loo yaqaan opacity waxa weeyaan shaygu inta uu muuqanayo haddii imkaan soo zoom gareeyo labada shay waxaad arkaysaa shaygani uu qariyay shaygii kale maadaama uu ka sarreeyo marka opacity-ga haddii aad yarayso waxaad arkaysaa shaygii dambe uu soo yara muuqanaya marka markasta opacity-ga uu yaraado markasta oo haddaad imikaad geyso 17% waxaad arkaysaa highlight oo kale noqonaya sababtoo ah xoog baad u yaraysay haddaad sii yarayso waxaad geyn karaysaa 5 haddaad 0 aad geysana total meeshu ka baxaya laakiin waxaan inoo geynaa meelaha 37 bage waxaan leeyahay marka drag and drop waayahay haddii kale iska full ka dhig laakiin xagga dambe aynu wareejino ama kantin doorano okay ma waxa ka fudud aynu iska soo yarayno waayo maadaama leerku qofka ku dhacay marka hore xagga dambe mariyaan islaha way toolka labaad markaan baranna kan horta halkiisii gee waxaan marka free transform baan soo furanayaa kan waxa loo yaqaanaa perspective distory marka kan shaqadu qabanayo waxa weeyaan laba side inuu kordhiyo kii hore muxuu qabanaya hal cidhif laakiin kan waxa weeyaan labadan buu sameynaya xarkasa rotationkii uu weyneynaya marka ugu horeyn qaybtiisa dadonto kan dooro deedna waxaan leenahay shayga siyaskiisa marka hore aynu soo weyneyno deedna doonayno xaggan marka hore aynu soo fit garayno perspective-kiina ku noqo oo xaggiisan hore marka hore ha ka yaraado waxaan leeyahay okay perspective marka haddii shayga shape-ka aad qaabkiisa aad ka bedesho waxaad arkaysaa imika waan qalloocay rotation ma ku sameeyay shape-kii waxa weeyaan toolskani kuma shaqeynaya marka waa inaad originalkiisa aad ku soo celisaa original markaad ku soo celiso marka waa inaad wixii marka size-ka aad weyneynayso aad soo jiidaa
xalay markaas size kan weynayay bahalka rectangle caadi aan sameeyay waxaan ku noqonayaa markaa free perspective kii hadda waxaan doonayaa markaa wax loo yaqaano perspective deedna waxaan leeyahay drag and drop deedna qaabka lightkii maadaama lightka hoosta uu fido qaabka lightka uu soo fiday xagganna waa iskaga soo yareynaya halkana uu ka soo yaraaday markaasna qaabkaas uu shaqeynayaa deedna move toolkaaga soo qaado dhinaca doonaysa uu sii kaxee markaa kadib rotation ku samee marka hore iska ilaalin rotation ku sameyso marka waxaad leedahay drag and drop imika hadda deedna aad ku noqoto free transformkii oo deedna israaxdo cidhifyadan kale kanoo kale soo dheere markaa waxaad awoodaysaa deedna waxaad leedahay soo dheere keligii kan kale waxaa leeyahay keligii perspectiveka isagana keligii soo dheere marka qaabkaas ayuu u shaqeynaya waxa weeye waxa loo yaqaano free transformka labadiisa tool marka toolska ugu horeeya waxaad arkaysaa labadan toolba qaabkaas u shaqeynayaan waxaad ba isaga kusii hoos jira wax loo yaqaano puppet wrap tool toolskan baynu haddana eegi doonaa marka ka hor intaynaan eegin sawirkeena saddexaad aynu tagno waxaan u baahannahay sheekhan baaskilada la ordaya maradiisa inaynu skaafkiisa aynu sii dheerayno rectangle baan soo qaatay deedna waxaan leeyahay drag and drop opacity markaa waxaan leeyahay eye dropkan soo qaatay oo toolka halkan ku yaala oo colorka meesha aad ku dhufato ayuu ekaysiinaya waxaan leeyahay casaanka u eegaado shayga casaanka markaynu ekaysiino sidaskiisana yaraynu weynayno way shaygan wuxuu kaa caawinayaa horta aynu samayno markaa waxa weeyaan aynu toolka ku noqono waxaynu u baahannahay toolka loo yaqaano perspective aynu dib ugu noqono waayo waxaan doonaynaa markan perspective waa kan deedna waxaan leeyahay marka right click si free transform ku noqo kan marka ugu horeysa horta aynu doorano selectionkii maadaama aynu doonayno inuu cidhifkan uu sidan usoo janjeersamo markaan isku soo xidhnay kadib aynu dooranaa toolka loo yaqaano puppet wrap wuxuu kaa caawinayaa waxaad samaysanaysaa waxa weeyaan cidhifyo waxaan matalan ku dhufanaya waxa weeyaan centerka meeshaad cidhif ku dhufto waxaad awoodaysaa inaad rotationka doontaad ku samayn karto dhinaca doonta aad u jiidi karayso marka laakiin waxaad arkaysaa waxaas dhaqaaqaya dhinacii hore dhinaca hore saan u dhaqaaqin waa inaad points ku dhufataa marka point marka ku dhufato ee halkana points aad ku dhufato laba point meel kalena points aan ka dhufano macnaheedu waxa weeyaan marka inta dambe isma bedelayso waxa kaliya isbedelaya waa maxay waxa isbedelayaan waa inihii kale marka waxaan leeyahay mid kale hadaad dhex kaga dhufato waxaad awoodaysaa kana inaad meesha doontaad u celiso waayahay kanoo kale waxaan leeyahay marka pointskaad meesha doonaysa hadaad ku dhufato okay halkanoo kale waxaan leeyahay kor halkanoo kale soo kaco marka meelaha qaar hadduu kaa khalkhalmo waa dooranaysaa deedna delete baad leedahay hadaad ku kale ku dhufato waxaad leedahay markaa okay xagga dambayso kale iyadan marka ka dhufano kaa u dambeeya marka halkan baa imika ka jira waxa weeyaan qalad kanoo kale aynu ku dhufano deedna aynu iska delete garayno waayo okay kana waxaan leeyahay delete marka markastoo isku bataan oo markastoo khalkhaliman karayo waad iska saaraysaa marka pointskaaga halka doonaysa geesa marka kan xaggan usoo qalloocide kan hadda doonto imika mid kale halkan aynu dhigno okay kan aynu soo celino haddaynu doonno okay zoom out waxaad arkaysaa imika waxa weeyaan qaabkii laga dhawaday oo kale perspective aynu ka dhignay marka toolskan waxaa loogu talagalay inaad customize ku samayn karayso waxa weeyaan imika dhegtiisana kale haddaad shayga aad doorato oo aad matalan layerska qufulin haddii layerskanu ka furno oo deedna aad shaygan aad doorato deedna bubalka aad doorato waxaad awoodaysaa qaabka aad doonayso markaa inaad usoo dhigto matalan sidoo kale ka dhig very simple deedna waad ka noqonaysaa marka qaabkaas ayuu u shaqeynaya wax loo yaqaano perspective toolka iyo waxa weeyaan ka kale la walaalka loo yaqaano puppet wrap tool waxaanu kaloo iyadan raacin doonaa weli waxaan ku guda jirnaa chapterkii loo yaqaanay waa transformka saddex tool iyaguna iska basiga oo ku jira toolboxkeena waxa loo yaqaanaa kuwii hore waxay ahaayeen laba tool oo midna ahaa waa free transformka midna puppet wrap toolka uu ahaa saddexdan tool iyaga waxa loo yaqaanaa waa kuwa ka sarreeya waxaan loo yaqaanaa hadaad aad hayso right click waa scale tool shear tool iyo reshape tool saddexda haddaynu ku dhufano halkan soo dhigano waxaan ku horeyn doonaa toolka ugu horeeya loo yaqaano scale toolku waa very basic wuxuu la mid yahay mar kasta toolskii lagu waaweyn marka marar badan baad sonaysaa Adobe Illustrator waxa ku jira tools aad u badan isku soo noqonaya shaygan siskiisu buu weynayn marka shaygan aad doorato meesha uu ka weynaanayo labada proportional bisku raacin wax kale ma kordhinayo marka isaga oo ku xisaabtamaya point kan halku yaala marka point ka halkan aad ku dhufato hal mar aad click siiso point ka halkaas soo dhigtay marka dhinacaas oo kaliya halkaas way taagnaanaysaa
waxaad arkaysaa dhinacii kale unbuu weynaynaya marka ka waxa loogu talagalay kow waa proportional waxaan jeedaa waxa loogu talagalay waa scale tool waa shay size-kiisa weynaynaya marka move toolkii baa kaaga filan inaad isticmaasho toolka labaad waxa loo yaqaanaa waa shear tool shear toolku wuxuu kaa caawinayaa shaygii inuu qalqaloociyo wuxuu la mid yahay haddaad shaygan aad doorto salaankan oo aad doorto propertieski halkan buu kugu jiraa waa kii loo yaqaanay hadda halkan aad ku dhufato waa halkan ku yaala waa shear toolku matalan dhinacu u jiifsamay baa imika waxaan ka dhigay waa dhinacii numberkan geliyay wax kasta uu soo jiifsamay shear toolkuna qaabkaas kale u shaqeynaya toolka markaad doorato waxaad u sheegaysaa pointska haddaan xagga u jeedo qalqalocsamaya laakiin waxaad arkaysaa lugihii shadowgii uu ka tagay dhinacaas uu jiitamay dhinacii kalena uu saxsan yahay si marka aan pointska u ilaaliyo pointska waxa weeyaan waa dhibicda yar ee halkaa taala dhibicdaasi halkay ku dhacaysa haddaan halkaa ku dhufto barta uu ka samaynayo qalooc halkaas noqonaya marka waxaan leeyahay qaloocu ha ka sameeyo marka shear toolkii baad dooratay ha ka sameeyo waan leeyahay bartaas ha istaago barta ha ka sameeyo marka shear toolku waxaad awoodaysaa inaad drag and drop aad ku soo samayso intii kale ma dhaqaaqayso marka waxa weeyaan salaankaaga dhinacii aad doonaysay ayaad u jahaynaysaa marka kaasna waxa weeyaan waa toolka labaad ee loo yaqaano shear tool toolka saddexaad ugu dambeeya ee iska kooban isagana waxa loo yaqaanaa waa reshape tool reshapeku wuxuu ka caawinayaa shaygu haddii uu line yahay inaad maxaa loo yaqaanaayay aad customize gareyn karto reshape markaad ku dhufato hadda halkan aad timaado ku dhufato waxaad awoodaysaa inaad pointska aad ku dhufataba inaad qalqalooc aad ka samayn karayso shapekii markii hore line toosan buu ahaa meel kastoo ku dhufato click aad siiso waxaad awoodaysaa inaad qalqaloocin karayso marka si aynu qalqaloocin imika icon kan oo kale waxaan u baahannahay inaynu icon qoslaya aynu ka dhigno u fiirso imika halkan oo kale waxa weeyaan waxaan dooranaa ugu horreyn lineka deedna waxaan leeyahay lineka markaa doorano reshape deedna waxaan leeyahay drag and drop waxaad arkaysaa lineki totally u qoslayaa shapekii marka qaabkaas ayuu shapekuna u shaqeynayaa inaad customize ku dhigi karayso waxa weeyaan shapekaad u baahan tahay aad customize gareyn karayso waxaynu weli ku guda jirnaa waa transformkii waxaynu haddana eegi doonaa laba tool oo kale oo iyaguna runtii aad u muhiima marka laga warramayo transformka toolka ugu horeeya waxaa loo yaqaanaa waa rotation tool waxaynu haysanaa waxa weeyaan waa dhulkii iyo waxa weeyaan qoraxdii marka waxaynu doonaynaa dhulku inuu ku wareego qoraxda si aynu haddaba ugu wareejino waxaynu soo qaadanaynaa toolka loo yaqaano rotation tool haddaad right click siiso laba tool ka kooban yahay waa rotate tool iyo reflect tool labada tool baynu u baahannahay waxaan leeyahay halkan isoo dhig waxaanu ku horreyn doonaa waxa loo yaqaano rotate tool rotate toolku wuxuu kaa caawinayaa rotationkaagu meesha uu ka dhacayo iyo qaabku u dhacayo inaad controli karayso ugu horreyn halkan waxaan ku haysanaa marka waxa weeyaan waa dhulkii haddaynu xoog u soo dhaweyno dhibic yar baa halkaa taala dhibicdaas marka waxa weeyaan waa pointka uu wareega ka samaynayo dhibicda waxa laga control waxa weeyaan transformka hadda hoosta ku dhufato waxay ku geynaysaa waxa weeyaan marka shape-ka ay tahay hoosta hadda doonaysa marka laakiin aad rotation toolka isticmaasho haddaad soo qaado ku dhufato dhibicda halkaa imka centerkii taagantay haddii aad ku dhufato halkaa waxaad arkaysaa dhibicdan shaygan aynu dooranay rotationka barta uu ka samaynaya wuxuu noqon doonaa waa bartaasi haddii aynu banaanka uga saarno halkan tusaale aynu ku fahanno waxaan soo qaatay rectangle deedna rectangle-kii waan sameeyey rectangle-ku markaan halkaa ku samayno waxaan u baahannahay markaa rotation toolka aan soo qaatay rotation toolka haddii aan halkan dhigo cidhifka haddaan dhigo u fiirso oo deedna toolkayga aan tago rotation aan israa ku samee toolku waxaad arkaysaa wuxuu ka wareegayaa ama uu ku wareegaya waxa weeyaan waa bartaay dhibicdeedu taalo marka qaabkaas ayaa loo yaqaanaa rotation haddii marka dhibicda aan qaadon geeyo halkaa aan geeyo rotationku xaggii kale u wareegaya waxaad arkaysaa dhinacu ka wareegaya waxay noqonaysaa waa xagga sare sababtoo dhibiciisu waxay taallaa xagga sare aynu ku noqono marka casharkeeni waxaan leeyahay markaa rotationka qaabkeedu controlisa waxa weeyaan waxaad siinaysaa click rotationka baan soo qaaday deedna waxaan leeyahay marka hore shaygii baan doortay rotationkii baan soo qaaday wuxuu ii sheegay markaa shaygaa hore centerkiisa marka waxaad ii sheegaysaa halkaa ay ku taala centerku waxa weeyaan waa shayga halkan yaala centerkiisa marka waad ku baadhaysaa waxaad helaysaa markaa waa marka haddii uu kuu furan yahay viewgu deedna smart guidelines kuu furan yahay waxaad heli karaysaa markaad saa u dul istaagto ee mooskaada hofar garayso centerkiisa waxaan doonayaa shayga inuu ka centerkiisa ku wareego waxaan leeyahay markaa marka hore waan ku baadhaya markuu centerkii soo qormo waxaan leeyahay deedna click rotationka halkaasuu istaagay haddii markaa aan islaamika rotate gareen waxaad arkaysaa wuxuu ku dul wareegaysaa centerka maadaama centerkii pointkiisa uu bartan u yahay
haddii se laakiin aan rotationkii aan qaado barta aan dhigo deedna isla rotationkii samee waxaad arkaysaa barta ku dul wareegaya waxa weeyaan waa rotationkii areadaas waayahay waxaa haddaba iyaduna muhiima rotationska muhiim ah waxa weeyaan waxaad samayn karaysaa markaad pointska aad doonaysa aad timaado haddaad hore u weydo pointskan kuu soo bixi waayo waxaad tegaysaa view deedna waxaad bedeli karaysaa qaabka uu wax usoo dhigmanay marka waxaad leedahay outline haddaad doorato control u guud ahaan wuxuu ka dhigayaa marka waxa weeyaan shaygii outline marka haddaad soo zoom garayso oo deedna aad points waxaad arkaysaa waa halkaa ku yaala dhibicda yar inkastoo dhibca fara badan meeshan yaalaan oo shaygani uu yahay shay aad u dhibca badan laakiin outline ahaan markaad tiraahdo aad ka dhigto saasaad ku heli karaysaa marka aynu ka wada noqono aan idhaahdo view deedna GPU previewgan ku soo celiyo waxaan daydayaa marka waxa weeyaan shayga centerkiisa inaan ka dhigo waxay marka ii soo baxdo center baan ku dhufanay waxaa haddaba iyaduna muhiima haddii keyboardkaga aad doorato alta isla markaana aad centerkii aad click siiso waxa kuu soo baxaya waxa weeyaan properties ku fiirso mouse-kaaga haddii aad soo qaado deedna centerkii baad timid altaad qabatay ka noqdo center markaad timid altaad qabatay altaan hayaa shaygii center markaad click ku dhufato waxa kuu soo baxaya rotation dialog box wax loo yaqaano wuxuu la mid yahay marka casharkeena kan ka dambeeyana ku baran doonaa gooraha loo baahdo laakiin waxaad u qaybinaysaa waxweeyaan angalka aad doonayso positionka tusaale ahaan haddaan doonayo saddexdii haddaan imika tusaale ahaan 35 degree inuu wareego bahashaasi waxaad arkaysaa 35 degree buu wareegaysa marka waxa weeyaan qaabkan manual aan mouse uga bahleen lahaa waxaan gelinayaa number deedna numberkaasi wareega oo ku sameynaya marka kaas waa toolkeena koobaad waxa loo yaqaan rotation toolka labaad isaguna muhiimka waxa loo yaqaan reflection reflective toolku wuxuu shaqeynayaa markaad soo qaadato shaygaaga toolkaaga imika waxaan haysanaa koofiyadan half of it waxaan doonayaa inaan rotation ku sameeyo waxaan jeedaa inaan ku sameeyo reflecting qaabka rotation ku shaqeyn ku dhufato dhibicdu meesha ay taalo rotation ka sameeyo ayuu reflection ka sameynaya haddii imika dhibicdu halka taalo oo deedna aan ku dhufto halkaas waxaad arkaysaa qalooci halkaas ka sameynaya aan ka noqdo control z haddii marka aan u baahanahay waxaan leeyahay dhibicdu ha timaado halkan marka altan qabanayaa waxaan leeyahay point ka ha timaado dhibicdu aan point ka dhiganaya marka click ku dhufto waxa ii soo baxay wax weeyaan reflect automatic buu isku sameeyay bahalkii reflected wuu isrogay sababtoo waxa weeyaan vertical buu tagay haddii horizontal taagay upside down buu noqonaya laakiin waxa leeyahay vertical angles ahaanna wad u dhigi kartaa laakiin waxa la qaatay vertical inaan ka dhigno marka reflective waxa leedahay copy kii hore soo kugu daayo kan uu kugu copyeeyo labadii marka waxa ka dhigaya koofiyada dhameystiran select kare deedna waxa leedahay one shape pathfinder kiiska ka dhig marka labada toolna iyagoo advance oo in casharka keena ka dambeeyo aynu ku baran doonaa laakiin qaabkaas ayay u shaqeeyaan waa reflective tool iyo rotation tool casharkan waxaynu ku soo koobinaa wixii aynu hore u baranay deedna waxaynu ka dambaysiin doonaa waxa weeyaan waa project inaynu ku dhisno inagoo isticmaalna waxa weeyaan transformka guud laakiin casharadii ugu dambeeyay ee reflectiga iyo rotation toolskan isticmaalay ayaynu casharadan uga danlaynay wax loo yaqaan waxaanu ku baranaynaa repeat functions muxuu yahay repeat functions waxa uu yahay waa sida Adobe Illustrator waa waxyaabaha technique ugu wanaagsan ama waxyaabaha ku jira ee mar kasta inta badan la isticmaalo waxaan soo qaadanayaa imika shape-kaas markaan soo qaato waxaan dhigayaa waxa weeye shape-kayga bartaasaan dhigay deedna waxaan leeyahay color baan siinayaa colorku doona ha noqdo stroke-na waxa weeye waan iska xidhayaa deedna waxaan leeyahay mouse tool-kayga waan soo qaadanayaa haddii mouse-kaygaasi shaygaasi inaan koobiyeyaan doonaya u fiirso repeat altaan qabanaya marka copy to see ma isticmaalaysaa hadda keyboard-kaaga altaad qabanaysaa deedna waxaad leedahay alta drag and drop shift-na waxa kuu saamaxaysaa marka alto kaliya hadaad hayso dhinacyadu dhaadheeraan karaa qalooc baa geli karaa adigoo isla isku sin laakiin shift-na hadaad qabato waxa kuu saamaxaya inuu line-kaaga toosnaado okay line-kii markaan toosiyey waan sii deynayaa haddaan u baahanahayna 6 jeer oo kale inaan soo celiyo uma baahni inaan kolba shift haddana drag and drop aan ku sameeyo waxaan tegayaa wax loo yaqaan repeat functions waxaan tegayaa objectives deedna waxaan leeyahay transform deedna waxaan leeyahay transform again marka waxaad arkaysaa transform again-ka control D ayaa shortcut-kiisu yahay marka haddaad ku dhufato control D wuxuu kuu sameynayaa duplicate copy-gii hore samaysay history-gii hore ayuu xafidsan yahay marka haddaad markale ku celisay control D waxaad awoodaysaa inaad ku celin karayso ilaa intaad u baahan tahay qaybta koowaad markaad saa u samayso aad samayn kartaa inaad mar wada doorato deedna aad alta qabato marka ugu horeyso kaliya aad koobiyeynaysaa markaad saa u koobiyeyso waxaad leedahay markaa objectives transform
transform again kii dambu qaadanaya control d control d control d control d waxaad arkaysaa markaa repeating function isku qaabkaas oo shaqeynaya shayga locations kasta inaad kaga soo celcelin karayso haddaynu tusaale soo qaadano markaa waxa weeyaan rotations iyo hadhow waxaan raacin doonaa iyo transform qaabka wada shaqeynaya aynu tagno markaa sawirkan waxaan u baahanahay inaan dib u design gareeyo waxa weeyaan saacadda halkan taala saacadani dhowr shay bay ka kooban tahay waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan waa numbers iyo shape loo yaqaan circles laakiin numberskan iyo dhibcaha qaabka loo sameeyo saan taw sameeyno ugu horeyn shape-kayga dooranna shape-ka markaan doorno waxa leeyahay midabka waxa ka dhigaya ugu horeyn cadaan oo ah waa centerkii waxaan kale ku xigsiin doonaa waxa weeyaan midabka loo yaqaan madow oo ah stroke halka ka wareegayo marka siyaska stroke-gan kordhin doonaa qasab maaha si qaabkeedana uu noqoto laakiin waxaanu ka dhignaa qaab ku soo dhadhow marka iyada doorato stroke waliba aynu ka dhigno colors black rasmi ah okay inta markaynu ka dhigno shayga siyaskiisa aanu yara weyneyno circle-ka waxaan hadda u baahanahay inaan waxan oo dhan ku sameeyno maxaa ugu horeeya ugu horeyn waxaan ku horeysinaa xooyan waa dhibcaha hadii soo sum gareyno shaygan laba dhibcood bay ka kooban yihiin mid waxa weeyaan waa saacadda hourska sheega oo waa dhibicda weyn kuwan kalena waxa weeyaan waa dhibcaha minuteska sheega oo aad u yar saynu hadda u sameeyno dhibicda weyn waxa ka kooban tahay baan filayaa intrino 1 waa 2 waa 3 waa 4 waa 5 waa 6 waa 7 waa 8 9 10 11 iyo 10ka saacadu ay wareegto ayay ka kooban tahay saynu taa u sameeyno ugu horeyn waxaan leeyahay dhibicda aynu sameeyno maxaan u baahanahay dhibcaha lane baan aynu baahanahay waxaad soo qaadanaysaa xagana soo durksano waxaan soo qaadanayaa lane caadi ah ama rectangle soo qaadan kartaa linekaas waxaan doonayaa anoo gaar lineka isticmaalaya centerka shape-ka inuu ku wareego marka taas aad iska hubinaysaa haddaad hore weydo waxaad tagaysaa view deedna waxaad leedahay outline igu bedel marka centerku waxa weeyaan waa halkaas waa halka kugu yaala haddii markaa aad hore u arki weydo wadada kale sameyn kartaa waxa weeyaan view marka tagto outline waxaad ku beegaysaa marka centerku inuu halkaas uu noqdo deedna waxa leeyahay drag and drop shaygi yara boolka habeenkan ka dhigaynaa xoog bool marka yar u noqon waxaan leeyahay meelaha 3 point inuu ka yareeynaa meelaha 4 point size-kiisana marka aynu yarayno xoog buu 4 points ku weyn yahay okay dhibicda marka waxa weeyaan inahaasinu ka dhigaynaa inta markaanu ka dhigno u fiirso waayahay dhibicda waliba aynu in yar weyneyno 4 stroke waxaan leenahay halkan ka kordhin kareynaa 5 baynu ka dhigaynaa waxaanu baahnaa hadaba dhibicdaasi inay 12 jeer wareegto manual uma baahnaa hadaba inaan ku wareejin u fiirso waxaanu isticmaalnaa hadaba rotation-kii aynu markii toolka loo yaqaanay rotation tool iyo toolka labaad loo yaqaano transform again labada tool baynu israacinayna u fiirso waxaan leeyahay markaa rotation muxuu sameyn jiray shayga soo qaadatay dhibicda uu halka ka wareegay baa tilmaamaysa dhibicda ka wareegay waxa tiri centerka bartan baad ku beegaysaa marka waad ku deydaysaa marka ku soo baxdo center okay intersection okay aynu ku baarbaarno marka centerkiisa dhibicda markaad hesho haddaad hore weydo waxaad leedahay view tag deedna outline dhibicda marka waxa weeyaan meelahaas ku taal marka okay center imku ku soo baxay haddii kale view-gaaga ku soo celi deedna ku dhex baar centerku marka uu ku fadhiisto adigoo ilaalinaya waxa weeyaan centerka hadii kale waxa weeyaan si fiican kugu wareegayo okay marka centerku halka inaad manual aad u geliso maahay laakiin waxa weeyaan centerku marwar bay ku qaadkan sanadeesho ilaa hadda ma hayno anchor marka kun kale ayna soo qaadan marka kun ayna iska xidhno waayo shaygan kan bayn diisanaynaa marka waxa la dhammaan soo wada highlight gareey marka wax oo dhan marka highlight gareeyo shift baan qabanaya kama reebaya marka intan oo dhan baan select gareeyay waxaan tagayaa objectives oo baradona qaabka loo xidho deedna waxaan leeyahay lock deedna waxaad iga log gareysaa inta aan doortay waayo intan baa khalkhalka keenaysa shape-kii marka centerka markaan soo qaato centerkiisu waa kaimik halkaas ayaa buu kaaga cadaanaya aynu ku noqon marka keeni labadan highlight garee labadan sabtan highlight garee waxa weeyaan kan inaan centerka geeyaan doonaya marka labadan marka highlight gareyso ka background-ka ku dhufanaya blue-gi baa ku sameysmay marka waxaan leeyahay ta calaamada ku dhufan alignment-ka dhawin baran doonaa laakiin marka horta centerka ige waayo qalad halkaas ka imanaya ku noqon marka shape-keeni markaad ku noqoto waxaan soo qaadanayaa marka rotation tool-ki rotation marka soo qaato imika centerka imika waan heli karaya marka waxaan ku baarbaaraya waxa weeyaan
centerka waa halka yaal center bay soo baxay markaan click ku dhufto markii hore rotation toos buu bilaabmay dhibicdu ma bartin imanaysa marka hadan ku dhufto click dhibicdu ma bartaa mid wax action ma dhicin rotation markaas hadana dib u wareejin karaa marka taama doonayo waxaan doonayaa dialog boxna inuu soo baxo dhibicdina ay halkeeda timaado marka waxaan leeyahay okay dhibicdu matalan waxaan leeyahay rotationkii dadna waxaan imanayaa centerkii dadna waxaan qabanayaa keyboardkayga alt waxaan leeyahay altan haya click maxaan alt u qabanaya alt waxaan u qabanayaa kow dhibicda halka taale centerkii bay timid waa qodobka koobaad qodobka labaad waxa ay soo baxay rotation dialog boxkan kan u baahnaa markaa waa ka shaqo kale markaa ma qabanin waxaan hadda u baahnaa waraaqda halkaas way wareegtay waxaan hadda wareega mathematical baan isticmaalay waxaan leeyahay 360 shay kasta oo circle muxuu wareegaa 360 buu wareegaa 360 waxaad u qaybinaysaa 12 ka maxaan ugu qaybinayaa 12 waxaan u qaybinayaa 12kii saacadood baan u qaybinayaa koodii ilaa iyo 12kii baan u qaybinayaa habeenimo inta marka sameeyo calaamadda tab keyboardkaaga aad doorato xagashiiba waxay ku leeyahay marka waxay wareegaysaa 30 degree buu wareegaya marka waxaan leeyahay okay waan u baahanahay copy igu samee okay ka ilaali copy baan leeyahay kii horena wuu yidhi okay sorry halka waan ku soo celinaa waayo waxa qaldamay waxa weeyaan rotationkii ilaa stroke waxaan wali haysanaa waxaynu select gareynaa waxa weeyaan key background markaan ka noqdo control z waan ka noqonayaa uma baahnin markaan ka shape-kiina doorto kaliya waxaan dooranayaa icon-kii waxaan soo qaadanayaa rotation tool-kii dadna waxaan imanayaa center-kii point-ka center-ka waana jooga waxaan doonayaa markaa keyboard-kayga alt-aan qabanaya waxaan leeyahay click waxaan leeyahay markaa 360 waxaad u qaybisaa 12 oo ah 12 ka saacad ay wareegto dadna waxaan leeyahay copy xagashi hore uu daayay tanun baa wareegtay marka waa tii koobaad labaad soo maaha wixii ka dambeeyay waxaan isticmaalayaa object transform again ama control d waa saddex bay noqotay control d shortcut baa la dhacay 4 5 6 7 8 9 10 11 12 saacadood ku dhameystay waa qodobkii koobaad qodobka labaad aan raacinaya waa maxay waa saacadda time-kii ma raacinaya waxaan leeyahay text soo qaado text waan baran doonaa toolka loo yaqaan text waa halka ku yaala tape tool dadna click baan ku dhufanaa meel kamid ah number baynu qoraynaa numberka tusaalahan waxaan ka bilaabaynaa 12kii 12kii markaan ka soo bilowno in sideskiisa soo weyneyno waxaan leeyahay 12 halkan ii soo dhig waxaan ku beegayaa markaa centerka farta adhown barbaran doonaa qaabka loo bedelo hadda se farku si meel gaadhin qaadanaynaa farta taasinu ka dhigaynaa intii animika sameeyay ma dib u sameeynaya waxaan u sameynayaa kow rotation toolkii ma soo qaadanaya halkan buu yaala rotation dadna waxaan imanayaa center point-kii baan eegayaa centerka markay soo baxday mouse-ka aad ku baadhbaadho eed hesho centerkii baad qabanaysaa keyboard-kaaga alta dadna click baad leedahay maxaanu qaybinaa waa intii la mid ah 30kii waxa la 360 marka saacadiin baa la qoriya 12kii oo qaybi barteedii ku dhacay saacada isku beegan yihiin dadna copy marka waxa leedahay control d toos baad duplication-ka u sameynaysaa wixii inta ka dambeeyo waxaad bedelaysaa laba qodob waana text-igi inaad bedesho oo imika waxa weeyaan 12 soo tan koyd ka dhigaa text-igi soo qaado dadna waxa leeyahay saacadu 12kii laakiin qalooc baa ku jira ugu horeyn bedelno waxa leeyahay tan 10kii ka dhig way qaladka u badan dhacay waxa weeyaan u fiirso laba qalad mid waa alignment-iga waynu isku sameynaa oo meesha ka dhacay waxa weeyaan drag and drop ku sameynaa soo noqon doonaa laakiin qaladku dhacay waxa weeyaan marka saacada loo yaqaan 6 oo kale marka imika 9kii oo kale 6dii oo qalqalocday noqotay waayo wixii dhan rotation baa ku jira imika 6dii oo kale 6 toosan oo kale tan ka noqon lahayd teen waxa ka saawa 6 forward saanu taa soo celino waxaan leeyahay waxa dooranaysaa mid kasta dooro kamanu ka bilaabayna dadna waxaan leeyahay objectives dadna waxaan leeyahay transform hadda waxaan dooranaya waxa weeyaan waxa loo yaqaano transform each markaan idhaahdo waxaan rotation ku sameynayaa xagashaydu sidee ku sax tahay angalka ma raacin marka angalka hadaan soo qalqalciyo xarkasa sida uu saxda ku yahay baan doonaya markaan uu saxda ku yahay waa maxay waxay noqonaysaa tusaalahan 30 degree baan ka dhigaya okay 30 uu qaldan yahay -30 baan ka dhigaya -30 waa maxay toos buu imika noqday waxa ka numberkii 12 ku toos buu noqday marka waxaan leeyahay okay ka ku xigaan tagayaa waxaan leeyahay marka sidaska kan wad soo yara baxaleen kartaa waayo 12 imika hadaad eegto fartuma kala duwan laakiin wuu toosan yahay marka kan kale imika kani eeg kan marka wuxuu ahaa -30 caadi buu ahaa ayuu qalooc sameeyay laakiin transform again ka -30 ka dhigana kan waxaan ka dhiganaa -60 object transform each dadna waxa leedahay kan waxaan ka dhiganaa -60
60 man leenahay marka waa minus marka hadda tab doorto halkaas uu fariisanaya waxa leedahay marka okay dadna iyo rotation dadna waxa leedahay kan kaalay 60 marka markasta uu sii kordhaya markasta 30 baa ku kordhamaya ee waxaan leeyahay minus 90 waxa leedahay okay 90 waxaan markaa saacadu way toosantay haddaad object tiraado oo dee waxaad oran karaysaa transform each deedna waxaa leedahay 190 waxaa 90 120 deedna waxaa leedahay okay ilaa finalkaad ugu dambaysa aad ka gaadho qaabkaasaad ku wadaysaa way kii ugu dambeeyay marka wax noqonaya 300 iyo plus 30 buu noqonaya in steady dadna halkaas koob okay dhamaan saacadii timekeedu waa saxnay fartun bay kala duwan fartan way bedelan karaysaa waxaad raacin doontaa hadaba qodobka ugu dambeeyay adigu inaad ku dari karayso sikimadan waayo sidii kun waaweyn bay rotation lagu soo sameeynaya marka qaabkaas ayaa mid kasta wax weeyaan each transform waxa weeyaan uu u shaqeynaya shaqo runtii waxa weeyaan qurux badan uu qabanaya aynu ku noqon wali rotation ku guda jirnaa waxaan u baahanahay hadda inaynu design gareyno waxa weeyaan loogadan marka loogadan waa looga caana in toos u design gareyno u baahanay inagoo isticmaalno rotationki iyo repeat functions inagoo isticmaalayna waayo waxaan ugu horreyn soo qaadanaa marka iyadana ku dul sawirayna layers kan tagaynaa marka layers kan baran doonaa waxaan leeyahay marka ugu horeysa circle ka dhaxan sawiraya marka centerka waa inaad heshaa drag and drop ku sameynaysaa okay centerki waynu helnay waxaa leeyahay marka stroke marka hore uma baahni okay aan white ka dhigamaye filka stroke waa iska soo xidhay kaas waa caleenti kuwaad baan sameynaya caleenta labaad aan sameynayo fiirso caleenta labaad aan sameynayo waxa weeyaan waa caleenta ugu dheer oo noqonaysa caleenta marka colorka haddaan doono marka madow ka dhignayso inuu fahmi karayno caleenta dheer ee mid ah oo keliya ta ayaynu sameynayna caleenta qaabkii loo sameeyay way fara badnahay laba shay bay inagu kala goosanayna waa circle baan soo qaatay deedna waxaan leeyahay filka uma baahni marka hore stroke kaliya u baahanahay stroke-na waxa inooga dhigayaa casaan stroke baan deedna sawiraya u fiirso shape kan u baahanahay waa ka deedna circle baan ka goynaya marka waxaan leeyahay drag and drop way marka waxaan leeyahay kana siyaskiisan yara weyneeyo waayo waxaan doonayaa inuu ku fadhiisto caleentu barta ay taalo marka in yar xagaa u jiid inuu yar baan doonayaa isku soo celino way waxba yaani qasab isku dul fadhiisanin waxa arkaysan yar qalooca ku jirta oo qaloocan waxa weeyaan toolska la isticmaalo ka xagan inuu ka sii waliba kordhino okay way inagu time badan ma hayno adaa tareegan doona waayo conceptka guud u meedoonaan fadhiisano oo in yar ba careful lagu soo sameynaya laakiin qaybta kood baynu sameeyay iyadoo koobiyaha ta qabo drag and drop sidekeedii kala keen maxaynu gasaa ku keenay waxaanu ku keenay waxa weeyaan labadii shape labadoodaba dooro waxa leeyahay marka shape larka soo qaado minus inta iga go deedna shape-kii kaliya ku soo haray haddaad u baahantahay marka dib u sii customize gareyso waxaad sameyn kartaa selection ka dooranaysaa deedna points-ka marka aad doorato points-kan ba in yar sin loo soo celinaya waxaad arkaysaa okay laba jeer buu koobiyay mid ahaan iska delete gareeyo selection toolkayga dib ugu noqo in yar baan marka minus halka kaga jira hadaynu soo zoom gareyno marka waxaan leenahay kan ayaynu yar soo celinaynaa kiisan kalena waxaan leeyahay angle-kana marka yar baan soo celinaa dhowin baran doonaa qaabka waxa weeyaan loo sameynayo shapes-kan selection-ka marka okay wax kale ma sameyn laba shape baan kala gooyay labadii shape markaan kala gooyay waxaad arkaysaa xaggeen baan u soo qaadanaya shape-kan sare right click si dadna waxa leeyahay transform arrange baan leeyahay waxaan leeyahay bring into front kan inuu soo sareeyo baan doonaya way kana waxaan leeyahay colorka loo yaqaan eyedrop oo toolkan ayaan soo qaadanay waxaan leeyahay colorkana halkan ka qaado labada color baan sameeyay waxa ugu horeeya sameynaya marka wuxuu noqonayaa u fiirso toolskan rotation kaas oo kaliya ta ayaa laga sameeyay waxaan leeyahay imsa tool weeyaan waa kan qabla waa kow
waa 2 waa 3 waa 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 rotation way marka kuwan tan maaha kuwan yar yar oo dhan iyaga iga daa waa kuwa u sareeya waaweyn oo dhan baan u baahanahay marka waa 18 frame buu noqonayaa maxaan leeyahay halkan ay dhig kaygi baan ku noqonayaa xaggan waliba iyaga turki saan isku soo gaadhin kanoo kaliya doornaya kan iska ilaali ma dooranaysid kan waxaan soo qaadanaya marka toolskayga loo yaqaan rotation toolka halkan yaalay rotationka waa soo qaadanaya waxaan doonayaa rotationkaasi meesha uu ku wareegaya waxay noqonaysaa kan circle-ka centerkiisa marka centerka marka soo timaado waxaad leedahay altan hayaa sidaynu awal buu haynay altan markaad qabato centerka oo centerka kale ku soo baxay dhex timaado waxaad center dadna waxaad leedahay click maxaan leeyahay nimka 360 waa sida saacadii kale waxaad u qaybinaysaa 18 wareeg buu sameeyay marka calaamada keyboardkaaga tab baad dooranaysaa dadna waxaad leedahay copy hadaba laba shay buu imika marayaa waxa la duplicate muxuu ahaa object ba tagaysay transform dadna waxaad leedahay transform again ama shortcut control d markaan control d baa isticmaalaya 3 jeer 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 oo fiirso 18 wareeg baa dhacay bahasheen wili iskuma soo dhawaan yar baa u dhiban tahay saynta yarna inuu gaarsiino waxa leeyahay dhamaan highlight garee marka laga tago maxay shape ka mid marka shift baa doonaysaa hadda doonaysaa ka tagto marka imika inta ku highlight garee kaliya waxa weeyaan waa frame key intano kaliya marka waad check garanaysaa kaligood control center ka noqo inta marka doorato colorskan inaad mid u bedesho uma baahnin waxaad leedahay objectives waxaad tagaysaa marka propertieska deedna waxaad tagaysaa wax ku yaala effects ama effects wax loo yaqaano effects marka ku dhufato waxaad leedahay marka halkan waxaad ka dooranaysaa effects waxaad dooranaysaa okay my tools ma soo furno waxaan tagaynaa windows deedna halkan waxaad nooga eegtaa transparent waxaan leeyahay waa transform transparent waa ka kugu xiga boxka marka ku dhufato transparency waxaad leedahay colorska waxaad iga dhigtaa imika wuxuu taagan yahay waxa weeyaan normal clicksy the note ku eegaysa marka dark oo kale muxuu noqonayaa wax isma bedelin multiply halkaas colorski baa isa soo bedelay marka colorka rasmiga imika ma baahnay laakiin waxaan u baahanahay yellowgi buu soo dhigay waxaad arkaysaa laba saddexdii color kala duwanaa haddaynu haynaa marka imika su'aal ahaan kan oo kale waynu ka dhigi karnaa color band lighting colorkaas leedahay marka okay kaas oo kale hadhow iska kan darsamaya waxaan uga dalnaa adigu qaabkan uu frame ku yaalo oo kale ka dhigno marka dhaakinkeen ku soo noqono color band baynu ka dhignaa color band hadaba markaan ka dhigo u fiirso host maxaynu ku haysanay waxaynu ku haysanay colorkii madow ahaa colorkiisa imika white baynu uga dhig maxaa isku soo eegaaday colorku imika inaynu bedbedelno u baahannahay marka si aynu colorka u bedelno waxaan leeyahay select garee deedna markaad select gareyso waxaanu isticmaalnaa shape builderka maxaa ugu horeeya waxa halkan circle-kani wuxuu ku darsamay waa angleskan buu ku darsamay waxa arkaysa angles badan buu ku darsamay marka sidaas la mid ah waxaan leeyahay marka ilaa circle-ka waa isku select gareeyay intan ugu madow ee ugu dhaagsan waa in cadaan ku darsantaa maxaan u baahanahay waa shape builderki waxa leeyahay marka soo qaado shape-kii deedna waxaan leeyahay muxuu noqonayaa minus mise plus buu noqonayaa maadaama isku wada darayna waxaan leeyahay intan oo dhan isku soo wada dar okay hadaad shift qabato waad samayn kartaa si wax oo dhan ba hal mar kugu select gareeyo waayahay daba kuwan ku dar baan leeyahay meelahan oo dhan isku soo dar gacanta waxaad ka ilaalinaysaa meelaha kale inuu gaadho kaliya area-da ugu dhow ee ka kale la gaarsiiyay ayuun baynu inagu u baahannahay inuu inoo gaadho waxaan leeyahay dhammaan markaan waa inaan mariyaa waayahay qaybtii koowaad waan sameeyay waxaad arkaysaa qaybtii koowaad ee centerka ahayd waynu ku dhamaystirnay maxaa inoogu xigay qaybaha kale hadaba qaab ka duwan qaababkii waxa weeyaan horeynu isticmaalayna waayo ayaa la maraya waxaynu isticmaalaynaa toolka labaad ee loo yaqaano live paint pocket ee la mida shape builderka isaga markaa doorato waxaan leenahay markaa eyedropkeennii baan soo qaadanaa marka eyedropka adigoo shape builderka dhex taagan live waxaan jeedaa paint pocketka dhex taagan eyedrop wuxuu ku siinayaa colorkaad kolba meesha aad taagan tahay sidii photoshopka oo kale si aad haddaba aad u gaadho waxaad leedahay keyboardkaaga haddaad alta qabato si temporary ayuu eyedropkii isku bedelay eyedropkii baa imika uu noqday click baad ku dhufatay aagadii markaa weli way sii soconaysaa markaa altadii markaad sii daysay
waxaan markaa leeyahay mid kasta waan ku shubaya waxaan leeyahay click okay bar okay click area aan uga baahanahay baan ku shubaya qaybta labaadna waan dhameystiray qaybta saddexaad maxay waa colorkan altaan qabtay click baan siiyay qaybta saddexaad iyadina wareegaysana sidii lamida ayaan greenku maadaama light uu yahay ayaan ugu sameynaya that's it loogada gabigeedii waa tan imka haddaynu soo barbardhigno waxaad arkaysaa totally shape-kii loogadu waa isku mid marka qaabkaas ayaa waxa weeyaan free transformka awooddaas u leeyahay marka waxaan jeedaa transformka oo waliba repeat function transformka iyo rotation tools markay isdhex galaan waxa weeyaan awooddaas leeyihiin looga kasta iyo shape kastana iyaga ayaad ka dhex samayn kartaa ugu dambeyn waxaanu soo gaarnay waa projectkii ugu dambeeyay ka sameynayno transformka waxa loo yaqaano markastana gabagabeynayno waxa weeyaan chapter waxaanu ka sameynaynaa hal project oo ku soo ururinayno wixii aynu soo kala baranay waxaan tegaynaa hadda file deedna waxaan leeyahay project ma soo furanayaa open waxaan soo furanayaa project loo yaqaano desktopka markaan tago halka ku yaala tagaysaa waxaan leeyahay transform practice project deedna waxaan leeyahay open project aynu hadda doonayno inaan design gareyna waxa weeyaan waa project halkan inoo yaala ee sawirka gacanta lagu sawiray waxaan u baahanahay inaynu finalka aynu ka dhigno waxa weeyaan project noocan oo aynu waxa weeyaan aynu u bedelno factor images saanu taa u sameeyno ugu horeyn sawirkan waxaan ku sameeynaa login iska xidhno hadii kala dhaqdhaqaaq inoo bahaleynaya marka waxa tagayaa qaybta loo yaqaan layerska chapterka kan ku xiga ayaynu bilaawi doonaa inaan ku baran doonaa insha Allah hadda waxaan leeyahay drawing images qaybta ku qoran tahay layerkaasi haddaan size-ka inoo soo weyneeyo aan idhaahdo panel option aan idhaahdo deedna large okay qaybta ay ku qorantay marka drawing baan waxaan leeyahay click c deedna waxaad leedahay template u bedel marka template wuxuu kaa caawinayaa sawirkii sida qalinkii buuga marka wax la sawirayo agaasta la marin jiray oo kale inuu khafiif u noqdo meeshan ku soo maxay kan waad iska ilaalinaysaa uu qufulay kuma waxba kuma dul qaban kartid ka saray ku qoranta work here bad u tagaysaa leerkaas waa active ku ahaada isaga aad ku dhufataa deedna wixii marka inta ka dambeeya waxaan u baahanahay marka inuu magaaladan dhisno magaaladani waa very simple guryahani waxaan isticmaalaynaa rectangle saan markaa u sameeyno waxaan leeyahay rectangle ugu horeeyaan soo qaadanaya waxaan tirinayaa imsa rectangle ka kooban yahay waa 1 waa 2 waa 3 waa 4 waa 5 6 7 8 9 10 daaqadaha iyo waxa kuma soo dirin laakiin gidaaradan tirinaya sawirada iyo waxaana kuma soo dirin laakiin imsa sayid ka kooban yahay leeyahay marka mid kasta si ku meel gaar waad iska sii dhigi karaysaa sawirka in bedelno colorkiisa filka uma baahnin waad iska xidhaysaa stroke-gan waxaan ka dhigaynaa color ka dhex muuqanaya markaanu sawirno casaan oo kale ama xabxabi ayaan ka dhigaynaa maxaanu sameeynay qaybta koowaad marka hore aad doonto hal marba mid aad soo bilaabi kartaa hadii kale hal mar baad waxa weeyaan aad raacin kartaa aynu ka bilowno marka inagu hal mar waxaanu ka bilaabnaa dhismahan ugu horeeya waxaan leeyahay kan koowaad ii dhig shape-ka markaad saas soo dhigato waxaan leeyahay move tool-kayga baan soo qaadanayaa base-ka ku fadhiisi marka hore shay kasta base buu leeyahay marka base-ka markiisa hore ku fadhiisi inta markaad ku samayso waxaan u baahanahay muxuu ahaa tool-kii loo yaqaanay free transform qaybtiisa maxayga loo yaqaanay free history waayo cabir kasta in gooni soo qaadan u baahanahay drag and drop baad leedahay deedna waxaan leeyahay ka ku xiga waxaan leeyahay drag and drop qaybta koowaad waan dhamaystirnay waxaan leeyahay markaa shape-kii labaad baan soo qaadanayaa deedna isagana waxaan leeyahay drag and drop waxaan ku celinayaa free transform-kii waxaan leeyahay markaa view-ga marka hore selection-kaygaan ku fadhiisiyo xaggan kalena waxa weeyaan halka u dambeysa marka hore aan geeyo marka move tool-kan weli aan isticmaalayaa drag and drop waxaa ku xiga markaa kadib aan deedna leeyahay free transform deedna waxaan leeyahay side-kan halka igee side-ka kale ku xigana waxaan leeyahay halka igee qaybtii kuwaad saasan markaan ku dhamaystiray waxaad arkaysaa isagoo stroke oo ayna color marin ayaynu qaybtii kuwaad dhamaystirnay waad raacin karaysaa daaqadaha haddaad u baahan tahay haddii kalena waxa weeyaan marka ugu horeyso waxaad soo dhamaystiri karaysaa waxa weeyaan kolba qayb marka inagu waxaynu dhamaystiri doonaa marka hore qaybaha waxaan leeyahay selectionka ku xigana waxaan leeyahay sidii lamid aan soo sameynayaa deedna waxaan leeyahay drag and drop marmar baan markaa labada shay baa iska sii samaysan karaya si aan hadhow toole dib ugu soo noqonin labada tool baan iska sii samaystay
deedna waxaan hal mar wada isticmaalaya markaa shape-kii history-ga qaybta ahayd baan tegayaa waayahay waxaan leeyahay kan baan ka bilaabayaa drag and drop deedna labada cilif hay isqabsadaan xaggiisan kale waxaan leeyahay halkaa ha tago waxaan leeyahay qaybtii sare okay qaybta ku xigta marka haddana aan dooranayaa waayahay way free transform saas ku sameyn markaa meelahan oo kale waad iska check garanaysaa matalan kan oo kale hadaad doorato free transform cirifkan oo kale waa inay sinaadaan card history drag and drop waayahay xaggan waynu soo noqon doonaa iyaga iyo qaabka loo soo kala saraysiinayo duurtaba labaynu dhamaystirnay qayb saddexaad baynu maraynaa waxaa leeyahay drag and drop ka kalena waxaa leeyahay drag and drop marka waxaynu sameynaynaa timeka waynu ka yara gaadhsiinaynaa si waxa weeyaan waayo repeat inta kale waa iskaga mid si aynu markaa time dheeraadaan way noogu noqonin waayahay waxaynu hadda markaa dhamaystirnay waxa weeyaan waa shape-kii guud ee dhismaha marka waxay noo raaci doonaa daaqadihii iyo sidoo kale waxay noo raaci doonaa waxa weeyaan boxka 3D-ga oo kale noqon doona marka aynu ku horeyno markaa daaqadaha inuu dhamaystirno daaqadaha marka dhamaystirno marka waxaynu u baahanay marka shapesku qaabka u kala horeynayaan xagga dambe marka ka soo warrami doona minus iyo plus inuu isticmaali doono hadeen doono aynu ku horeyno marka daaqadaha daaqad kasta dhinac buu hadh ka soo gelayaa view-ga marka ugu horeysa shapes baynu hal mar wada sameyn doonaa kuwa kale markaan ku celin doonaa laba daaqad kasta symbols ka sii samee 3 teedna waxaan leeyahay 4 teedna waxaan leeyahay 5 marka ugu horeysa 6daas ayaan doonayaa inaan dhamaystiro kawsareeyo markaa kasoo bilaabi doonaa waaye ka markaan doorano waxaan leeyahay free transform kiinu dooran free transform destroy teedna waxaan leeyahay daaqadani kan halkan buu gelayaa ka labaadna waxaa leeyahay halkan buu gelayaa waayo qalooc yar baa ku jira waxaynu arkaynaa xagga dambe ee shadowga qaabka loo farsameynayo waxaynu ku baran doonaa markaa toolski waxaynu isticmaali doonaa width toolka marka waynu soo noqon doonaa ugu horeyn waxaynu hal mar wada dhamaystiri doonaa angleska okay free transform-ka ku noqo okay free transform destroy waayahay labadaas aynu dhamaystirnay saddexaad waxaa leeyahay drag and drop waayahay afraad drag and drop marka haddaad hal midaad fahanto waxa kale waa ku celcelino waayahay inta markaynu soo dhamayno waxaan markaa guda geli doonaa waxa weeyaan maadaama oo angliskan waxa weeyaan uu u baahan yahay shadow oo waxa kasta stroke dhinaca uu ka yar weyn yahay waxaan u baahan markaa isticmaalna wixii loo yaqaanay width tool waa toolka halkii noo yaalay dadna waxaan leeyahay toolskiisa ugu horeeyaan u baahannahay toolska markaa doorato waxaan markaa dooranaa labada angle halka iska galaan dadna waxaan leeyahay drag soo dhawee markaad hesho markaa pluskaas waa dadna waxa weeyaan
aad xagga u durkin karaysaa waxaad arkaysaa weliba aan idhaahdo marka labada dhinac bay ku durkinaya laakiin haddaynu hal side doonin marka dad center drag and drop okay ka noqo center ku bar labada dhinac gudahana uu soo gelinaya dhinacaan uu ka durkinaya marka haddii doonaysan dhinacaas kaliya uu ka durkiyo waxaad doonaysaa keyboardka alt deedna marka waxaad leedahay xagga ka durki xaggan kale laftiisana waxaynu uga baahanahay inuu isagana marka waxaan leeyahay aan qabto keyboardka alt deedna waxaan leeyahay isagana xagga uga soo durki marka framekeena waxaad arkaysaa 3D ga waxaan jeedaa ama dhinac kaliya ku dayno okay size-kiisa marka ugu horeysa aynu soo yareynay marka waxaanu sameynaynaa waxa weeyaan aynu ku sameynaynaa stroke yar horta aynu sameyno ama shaqada ugu dambaysa aynu ka dhigno aynu kuwan hore iska soo dhameystirno si marka hal mar aynu isku wada eegno okay waxaanu hadda dhameystirnaa waxa weeyaan waa shape-kii guud ee waxa weeyaan uu project-ku lahaa marka hadda waxay ka dambeeyay waxaan toos u bilaabaynaa inaynu color gareyno image-kan waxyaabihii ka qaldana markaaynu hagaajino waayahay ugu horreyn waxaanu ka soo bilaabaynaa marka waxa loo yaqaano dhismaha ugu weyn baynu ka bilaabi doonaa oo ah kan labadiisa shay marka waxaan leenahay marka colorska markasta waxaanu ka qaadan doonaa dhismahan kale colorkiisa marka waxaanu isticmaali doonaa eyedropki aan markii hore soo isticmaalaynay waayahay dhismaha koowaad ka soo bilaaban waxa la selection inta marka doorato eyedropkiisu colorka halkan ka soo qaato marka qaybtaasi totally colorkiisa buu siinaya waxay ku xigaya marka waxa weeyaan in qaybtan kale aan doorano iyadana waxaan leeyahay colorka halkan ka qaado dhismihii koowaad dhismaha labaad dhinaciisan kala shadow waxaan leeyahay colorka halkan ka qaado kan marka doonayso waxa weeyaan shayga marka hore aad dooratay مثلا selection toolki baad dooranaysaa deedna shaygaad u baahantay baad dooratay shayga markaad doorato marka direct selection ma waxa doonaya waxa weeyaan waa selection toolka eyedropkina waa kan deedna waxaan leeyahay marka colorka oo tilmaamaysa meesha ka qaadanayo deedna isaga toos colorka uga soo qaadanaya way ka ku xigeen leenahay waxaan leeyahay eyedrop waa dark color waxaan leeyahay dhinacna white color ka u dambeeya marka waxaan leeyahay white color okay kan waan qalday aan ku soo noqdo waa gray okay kiisa u dambeeya leeyahay isaguna waa dark color waayahay dadonto qaybta drawing ko iska yara qarinayna si aan u eegno waayahay command
waa eyedrop selection kii ka ku xigaan deedna dooranaya waxa leeyahay isagana eyedrop colorkiisa xatiisa gray way haddaba halkan waxa dhacaya shapes-ka meelaha qaar bis ka soo dhaafaya waxaad arkaysaa imika dhismahan oo kale inuu ka dambeeyo kan oo kale marka si uu uga dambeeyo waxaad markasta doonaysaa isaga kolba kii qalad ku jiray inuu kan soo horeeya ahayd waa doonaysaa dad waxa leedahay right click waxa leedahay transform deedna waxa leedahay ma waxa jira arrange deedna waxa leedahay send to back marka hadhow in baran doonaa kaas halkiisu tagin kan kalena waxa weeyaan qalad buu ku jira waxa leedahay select right click deedna waxa leedahay arrange deedna waxa leedahay isagana send to back labadaas marka xagga dambe mareen maxaa kale qalad ku jira kan oo kale ku jira right click waxa leeyahay arrange xagga u dambeeysa mari marka waa layers qaabka u kala sareynaya photoshop kana waa si layers loo kala sareynayay laakiin waynu baran doonaa iyagoo waxa weeyaan chapter gooniya intaas hadoo markaan dhameystirno waxaan dhameystirno waa dhismihii guud muraayadihii baa ku xiga muraayadaha sample waxaan ka soo qaadanaa dhamaan muraayadu waa isku wada mid xabad bay xabad marka colorkooda aynu bedeli doonaa aynu ka bilowna marka muraayadaha okay kanoo kale qalad baa ku jira waxa leeyahay kanoo kale right click deedna arrange deedna send to back wixii marka dambe marka gooni u dooranaya waxa weeyaan waa muraayadihii xabad bay xabad inuu soo dooranaynaa waxaad ka ilaalinaysaa marka in meeshan oo kale kaaga dhacdo waayo click hadday meel qaldan kaaga dhacdo waxa weeyaan color qaldan baa kaa mari doona muraayadaha marka waxa leeyahay eyedrop ka qaado iyagana blue ha noqdaan stroke-gooda marka qaybta uu sameeyay qaybta shadow-ga ku soo noqon doona qaabka loo sameynayo laakiin ugu horeyn waxaan leeyahay aynu fadhiisino color-kooda guud leeyahay eyedrop click yeel baabada ku soo noqon doona laakiin ugu horeyn dad doonto hal mar in drag and drop dad ku soo wada samayso deedna waxaan leeyahay okay inuu ka ilaalino qalad ku dhaco 2 3 4 5 eyedrop waayahay labada albaab waxaan jeedaa albaabadaynu maraynaa waa 3 4 5 albaab iyagu waxa weeyaan waa isku color eyedrop kan qaadanaya click baan siinaya colorska marka iyagana waxaan weeyaan isku mid baynu ka dhignay stroke colorska aad u waaweyn aynu stroke-gooda yarayno inta hadoo markaynu samayno qaladaad kale soo baxay waxa weeyaan frame-ka meelaha uu ka soo dheeriyo kale labadooda waa inaad isla highlight garaysaa deedna waxaad isticmaalaysaa shape builder-kii deedna waxaad leedahay minus qaybta uu ka saaray waxaad arkaysaa gurigii toos buu ka baxay waxaan leeyahay qaybta labadan isku soo highlight garee minus alt aad qabanaysay markaa iyadana waad ka saartay waxaan leeyahay labadan isla soo highlight garee waxaan leeyahay minus adoo alta haya deedna iyadina waxa weeyaan waad ka saaraysaa way marka move toolka markaad soo dooranaysaa labadan doonto afartan ba hal mar wada highlight garee selection-kii dooro alta ka saar qaybtana ka saar waa yahay labadan daaqadood baa noo gabaday iyagana waxaan leeyahay eyedrop-ku waa AKC intaa markaan hadda aynu samayno si fiican ayuu markaa dhismihii guud aynu dhisaynaa marka waxa intaa inoo raaci doona inaynu shadow-gi yaraa samayno marka shadow-gi waxaad isticmaali doontaa shape builder-kii marka haddaad kan doorato oo direedna aad tiraahdo waa kan width tool-kan jeedaa waxaad leedahay markaa section-kaas drag and drop soo samee labadu iska soo balaadha waad iska deynaysaa ka ku xiga waxaad leedahay drag and drop marka qaab 3D ah ayuu markaa qaybtaas saas u noqonaysaa halka iska galaan baad eegaysaa haddii meel qaldan kaaga dhaco isaga laftiisa waad ka ilaalinaysaa mid baan bahalayn karaysaa xoogna xoog weynayso fool xumo noqonaya marka guud ahaan saas ku wada wadaysa inagu time badan ku sii bixin mayno oo wixii waxa weeyaan factor design halkan baad ka eegan doontaa waxa u soo dambeeya waxa weeyaan waa fadhiga ku fadhiyo transform-kii weli aynu isticmaalaynaa intayna fadhiga samaynin waxaanu isticmaalnaa marka waa laba background ka koowaad waxaan leenahay rectangle-kan soo qaadatay deedna waxaad ku dul sawiraysaa marka isagii baa soo sareeya markasta xagga dambe ee doonayso mar right click baad siinaysaa deedna waxaad leedahay arrange send to back marka eyedrop-kan isagana qaado color-ka waxaan leeyahay halkan u AKC wixii intaa ka dambeeya waxaan leeyahay marka background-kana xaggii sare waa inaan dhisaa isku soo dhaweeyo okay inta waxa igu xigaya waa background-kan hoose isagana waxaan leeyahay shape baan soo qaatay drag and drop isaga laftiisana waxaan leeyahay send to back deedna eyedrop-kayga soo qaatay color-kan halkan baan uga ekaysiinaya intaa haddaba markaan sameeyo wixii ka dambeeya waxa weeyaan shape-kan dhulkana qaabkan u sameeyay waxa weeyaan
labadooda marka hore haddaad doonto iska hide garee markaa si aad u hide gareysa layerka markaad furato halkan waynu baran doonaa qaabka loo hide gareynayo laakiin hadda si ku meel gaadha waan deedna labadan ishaan ka qaadaysa si photoshopka waayo waxaan doonayaa drawingkii inaan la soo baxo drawing waa kan deedna waxaan leeyahay drawingka backgroundka hoose wuxuu noqonayaa waa shape caadi ah rectangle baad dhigtay rectangle-ka markaad dhigto waxaad leedahay right click deedna waxaad leedahay arrange deedna waxaad leedahay send to back xagga dambe markuu gaadho marka hore colorka aynu iska bedelno marka shift ka soo kala bedelaysa si aad u arki karayso marka waxaanu isticmaalnaa toolka maxay loo yaqaanay waa transformka ee loo yaqaanay waxaan leeyahay free transform direct selection ka isticmaali karaysa marka ama kan isticmaal oo siimka fooq aynu ku wadnay oo kale ayaynu isticmaali karaynaa haddii kan waxa weeyaan direct selection ka laftiisuna uu qabanaya shaqooyinka weynagina waxa weeyaan points ku bedelaa siga laftiisu marka waxaad leedahay drag and drop key ku football isticmaali karaysa inagu laakiin waxaan ku noqon doonaa transform key history deedna waxaan leeyahay kan drag and drop soo samee kan halkan baan dhigay okay aan ka soo wada noqdo waayahay shift colorkii aan bedelay kooda waxaan leeyahay marka halkan ii dhig kiis labaadna waxaan leeyahay marka halkan salka soo dhig ka saddexaadna waxaan leeyahay halkaa gee kan afraad isaga lama arkayo meeshii uu ku macquul yahay iska fadhiisto waay marka hal layer baan sameeyay isaga laftiisa waa ina koobiyay qaabkii loo koobiyay waxa alta la qaban waayo halkan laba lakab ka kooban tahay drag and drop deedna qaabkaas ayaad isagana waxa weeyaan qaybtii labaadna aad u soo sameynaysaa colorka marka aynu bedelno ka hoose marka waxa weeyaan fill iyo stroke bay kala yihiin aynu marka ka sareen doorto waxaan leeyahay bedel colorkiis marka blue buu noqonaya waxaan jeedaa dark color buu noqonaya marka ay drop ki qaado halkan ka qaato aan leeyahay ka waan qaadnay kiisa labaadna waa stroke isagana aynu bedelno aynu naano ay drop ka halkan ka qaado labada layer markaynu sameyno haddii drawing iska yara qarino waxaad arkaysaa labada laka afka kala hayaan marka waxaad isticmaalaysaa shape-ka caadiga shape hadda rectangle soo qaado labada af waxaad leedahay isku keen labada af marka isku yimaadaan dhinaca kalena waxaad u baahan tahay inaad u isticmaasho free transform-ki marka waxaan leeyahay mid dhinac kaliya ka isticmaalno waxaan leeyahay marka right click arrange send to back qaybta kooda xagga marka lakabka kooda saas ku sameysmay lakabka kooda oo sabta ka saddexaad baa dhiman ka saddexaadna waxaad leedahay shape soo qaado drag and drop ka hor samee deedna marka hore xagga dambe hadda doonto u sii dir waxa soo qaata marka free transform deedna waxaan leeyahay ku soo fadhiis waayahay basically marka imika dhismihii saasaynu ku sameynay waxay noo soo raacay waxa weeyaan waa dhirtan oo kale waa basic oo markii ugu horeysay haday cashkii ugu horeeyay soo daawatay flowers kan ku sameeynay waxa weeyaan very simple flowers ki qaabkan u sameeynay baa ka adkaanaya marka waa inaad maxaa loo yaqaanaayay aad casharadii hore dib aad ugu noqotaa dadna practice aad ku sameysaa inagu time badan ku sii bixin mayno maadaama inta ugu adkeed ay tahay qaabka loo dhisayo dhismaha guud wixii inta ka dambeeyay marka toos weynoo dhameystiran yahay dhirtan iyo waxaan kono kale waa advanced kono kale waa 3D waa advanced waxaan jeedaa waa aad shapes aad u badan marka symbol baynu soo qaadanay oo gelinay qasab ma inaad wad sameyso marka iyaga waynu baran doonaa mustaqbalka dambe laakiin hadda waxaan ku deynaa marka wax weeyaan dhismaha qaabkan baynu ku deynaynaa waxaan taa ka dhiman wax weeyaan kono kale waa very simple waa shapes wax weeyaan circles la isku geegeeyay saddex circle oo kii kooda la soo qaaday hadana ay drop soo qaadano waxaan leenahay waa kaas oo deedna mid yar oo kale waxa weeyaan isaga laftiisana loo geeyay size-kiisu ma la yareeyay opacity-gana 100% ka dhigo xagan kale mid yar oo kale la dhigay inta markay saa loo sameeyo kale shape caadi rectangle la soo qaadaya deedna intiiba hadana san loo marinaya deedna inta markaad saas u marso waliba shape kana aad si fiican u hagaajiso bartu ku dhacayo okay guud ahaan dooro waxaa leeyahay marka shape builder ka la isticmaalaya drag and drop baad ku sameynaysaa waxaad leedahay intan oo dhan iga soo go minus deedna intan waxaan leeyahay waa one shape property tag deedna waxaan leedahay one shape ka soo dhig marka waxaan kaloo dhimo basic dhirtan iyo intan hoosna waad kaga tagaysaa marka qaabkaas ayaa in waxa weeyaan project-kan ku dhameystiran yahay waxa inta dheeraad in ka tagnay markii laakiin waxa weeyaan shay kasta adigoo isticmaalay free transform-ka ayaad ku design garaynaysaa waxa weeyaan ama dhismaha noqdo ama waxa weeyaan project kale oo weyn ha noqdo